faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaalada xooggan oo saacadihii la soo dhaafay laba maleeshiya beeleed ku dhexmaray meel aan sidaas uga fogeyn deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud. dagaalkan oo la isku adeegsaday hub aad u culus ayaa waxa ka dhashay khasaare dhimasho oo gaaraya ilaa 3 ruux kuwaas oo ah labadii maleeshiya beeleed halkaas ku dagaalamayay. dagaalkan ayaa yimid kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay labada maleeshiya beeleed ku muransanayeen dhul iyo barkada deegaankaasi ku yaala, waxaana qolo walba ay sheeganaysan milkiyada dhulkaasi. dadka deegaanka ayaa noo sheegay in xiisadda halkaasi ay ka taagan ay tahay mid aad u kacsan, waxaana labada dhinacba gaaraya gurmadyo kala duwan oo ay ka helayaan deegaanada ay ka soo kala jeedaan. maamul goboleedka Galmudug ilaa haatan kama uu soo hadlin dagaalkan marka la ka soo cusboonaaday deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud. mana jirto wax waana ama nabadeeda oo ilaa haatan la kala dhexdhiga labada maleeshiya beeleed ee dagaalka ku dhexmarayo meel aan sidaas uga fogeyn deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud. ma ahan markii ugu horeysay ee labadan maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaankaasi, iyagoona marar badan sidana kale ay dagaal lagu dhexmareen deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud. odayaasha dhaqanka labada beelood waxgaradka iyo siyaasiyiinta ayaa baaqyo kala duwan u diray labada maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaankaasi, ayagoona ugu baaqay in ay xabadda joojiyaan.